ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa balweynta Akshay salaadiinteeda odayaasheeda siyaasiyiinteeda iyo hablaha iyo namadaba xafladan quruxda badan caawa isugu yimi waxaan kaloo salaamayaa mas'uuliyiinta halkan jooga oo ugu mudan yahay Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde mayorka caasimadda iyo gudoomiyaha kaambeynka xisbiga wadani runtii farxad bay tahay caawa inaan munaasabadan ka soo qayb galo farxad weyn bay xisbi ahaana noo tahay taageerada maanta noo muujinaysa anigu laba kalmadood oo yaryar baan doonayaa inaan idhaahdo Somaliland cadaalad darrada ka jirta qofkii doonaya inuu fahmo waxa kaga filan beesha dhan ee intaan leeg ee Somaliland degta ee taariikhda leh ee magaca leh ee sumcadda leh inaanu madaxweynaha Somaliland qof ka mid ah qalinkiisu arag cadaalad darrada waddankeena ka jirta sharaxaad kale uma baahna intaasaa ku filan cadaalad darradaasi waa waxa maalin walba suldaankeena weyn ee Suldaan Xasan ee runtii qiimaha badan ee halkan isbedel doonka ku sultan oo hal iyo habeen ka hadlaya waa sababta aan isbedelkeena doonayna aanu ahayn mid qabyaalad ku dhisan ee uu yahay mid hormoon oo aan rabno dalkeena inaan ku midayno dib ugu dhisno hore ugu qaadno isbedel dhaba ku samayno oo aan ahayn qof baa qof maxaan ku dhahdaa lagu bedel waxaan hubaa waan doonayaa inaan beesha Akshay u sheego siyaasadda xisbiga wadani kow waxa ka ah reeraha sida Akshay oo kala ee Somaliland ku dulman in madaxweynaha la doorto haddii Ilaahay dhaahdo 20 maalmood kadib dadka u horeeya qalinkiisu waa ka ay noqon doonaan haddii Ilaahay haddii aanay taasi dhicinna waxba isma bedelin waayo isbedelka rabnaa waa isbedel cadaalada si cadaalad ay loo helo awood qaybsiga siyaasadda iyo dhaqaaluhu waa inuu dadkoo dhan si siman oo cadaalada ugu wada gaadha haddii Ilaahay dhaahdo 20 maalmood baa doorashadii nooga hadhay waa 20 maalmood oo ay tahay inaynu soo jeedno aynu shaqayno si waddankeena cadaaladaas uga dhalato qof walba caawa halkan ka taga waa inuu fariisida noqdo waa inuu qof shaqaynaya noqdo waa inuu qof 20 maalmood ee soo socda diyaar u ah inuu hal iyo habeen taagnaado siduu isagu codka u bixin lahaa maahee sidii ay cadaaladaasi u guulaysan lahayd ee dadkoo dhan ay codkooda u bixin lahaayeen ee aan dadka u abaabuli lahayd waxaan isleeyahay mid kalena caawa idiin muhiim codkiina ina muujisaana waa u muhiim ina codkiina muujisaan waxay muhiim u tahay inaynu identity la yaqaana oo jirta oo reer Somaliland tihiin oo siyaasadda iyo xisbiyadu ku xisaabtamaan idinka ayay ku xidhantahay maanta codkiina sida u horisaan iyo sida ay ugu madax banaanaataan annaguna haddii Ilaahay raada xisbi ahaan waxaan naga go'an inaynu si dhow imika riba haddii Ilaahay raada wada shaqayno intaasaan halkayga kusoo koobayaa waan jeclaa inaan joogo laakiin aad iyo aad baan uga xumahay inaan maxaan ku dhahdaa idinka cudur daarto oo shaqaan u baxaya Jirde iyo mayorkii iyo madax sarsaro kale ayaa idinla joogtaa inaan weliba ugaaska hadalkiisa dhegaysto run ahaantii sharaf bay aniga ii noqon lahayd cudurdaarkaasna ugaas iga aqbal aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi
كدب بحط بينوتها هاي إنه يعاود كسر قيب قلنا مانتين إنه بيشي أكشاف قيب كم إذا ولي بنا حفلة الموتين يصير تغيير إنه أينوه هينو حسب وطني إن بدن بمجعين واسنا إن بدن بمجعين الله عياري لكن الحمد لله ما أنت مجعين مرسل وشوقه وإله اللهم هذه هذا الكبارين ما يو بدو عن لي تركي عبد الرحمن يعيش بيس وحي نوبة هين هالمالين ومالين تاينو علينا إنه أي نفرتين وجوه لنا إنه مالين تاسوي نوبة هين إنه وحي نوبة عن هاي تضبط السنو فردي الدورة مالين وقوة نوبة عنانا كل يوم الباب كيسير تشوقنا وصل يا فرحة بين كلنا ولانا الباب كيسوي نوفريا سيد النقطة قدمي marka maalinta ilaahay dalkiina inuu guuleeyo oo aynu gurtano oo inuu soo jeedno balan baynu ku qaadnay soo saarkumayna balan Allah idinka aqo talabaadna waxaan u jeedinayaa xisbiga madaxdiisa sare oo ku halqabsanayo Cabdiqaadir Allah idin barakeeyo beeshan akisho 12 jilibooye waxaan lahaan jirnay 12 albaab walba waxaan uga soo gali jiray halaq nacuma مدري ما نقارني ونتشني هل الباب يعني هل الباب هل كان الباب نهار فضول لي هيو حنقول لك الله إذا أنا أقول الله هاي أنا كفرنا حسبي وطني وأنا أقول أني وأنا كفرني فلان بيقول رجينا لكن أنا ما هنتقابل إلى إلى قرابية قرب أن نقول عاي فيلا وحايستا أيها وحكة تبعي الدولة أنا متضبطي السنة وحبوا منا نقول ضدك عروني أنا كل شيء من وطن كله عروني تضبط السنة ضمنا عبد الرحمن قصر قال له وحن تايو أتانا حتى وحوينا والله قصرنا إن شاء الله تعالى إلهي جبتي فيش يلو حنقول بشارين إن أيضا نكاسي بلنقات في عن سيئة قبلي سبنا السيئين وحي عينو هاي وسيد حقين بالله جنو تطوري سنو وسيد كيجي واضحنا لكن إلهي يمكي كي عينو هاي يقوى الله ضربا وينوبر القادية بشاريس إن شاء الله تعالى عن هذا البيت بسوك بقوين يا ونستغنى سيجار وسلام يا صاحب كي ما يدلوغي ونستغنى إن بلنا عن رفيق هاي استندلوا إلا يا أي ألف لها يجيها والسلام يا استغنى ولا وجوهنا هذا السلام يا استغنى وعن هذا الدين السوق بكميني دوبها إنه ذكرنا هاي وين تقدار بالدولة وصلنا وين تقدار بالدولة إنه عرفت إنه كم وقضه إنه يسوي وين إنه كم وقضه إنه يحول إنه يحول إنه استعمال سيدا شيء بلوي تاكيشو هل كان عاوة كبو تنسى inay magaceega iyo miisaankeega iyo xuduudeeda ay duldhigayso xisbiga wadani halkan waxay ballanka qaadaynaa sidii hore aanu xuduudda u duldhignay xisbigii kulmiye ee reerku ku hongoobay xuquuqdii uu ku lahaana ka waayay maanta waxaanu miisaanka iyo awoodda wada saaraynaa xisbiga wadani إلهينا وحنا وطلع قاضيا حزب الوطني إنه إلهي كقولي هوشا سيدا لا يقانو بروي كاتشو وميسان لك بدا مركا سيدا الله ديغو وراجحاتا وحنا لها نقوى ما تاريخها بلاهي باشو بريقي هنا ديها إلهي حزب الوطني نوحانيا مركا مانتا كفدي فاتحاتي وتأكي شهرك كم وركسي وأنا صوبح يا سيدة سلطان حسن سلطان عبد الله وحلا إله الله وسلطانك بيرها خبر أول وحلا سلطانك ما ها سلطانك بيرها خبر أول
وسودان كبيرة غبر أول وسودان كأكيشو وسودان كماليدان وسودان كجوجلوي سيدا أوجد كسو قيبتل كعاو هلكا أصول نغا سو قيبتلي أجل هم نغينا سودان كا بيشونا سيدا لوكتهين با ميسان ويبين سومالي لان كل هاي وانay muuqan doontaa maalinta codka la codaynayo meelaha ay ka codaynayso miisaankeega maalintaasay muuqan doontaa maanta qaani maayo ilaahay waxaan ka baryayaa in hawsha doorashada ee rajada boqolkiiba boqolaan qabno إن إلهي معلومها كوبان الكاري نبغي نقول كارتيو أدي أبدال ما سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي. وحسنات توقوه غير اليوم. اليوم غلقة وحوي الملحلة. ولما لك ميلي سنة فردا إنك استوى حلقاته تاير هذا زوجته وحلقات كرسانته إذا أوف شيء حوالك حتى تسوي شيء أنت كنا كنا رواية وحويان أنت كنا حاجة شفتنا صلاة وقرسينة أنت تدري وحويان تذكرك أنت والله سيقانا مدحوينها وحجر الأخرين هل يقول فرحان أنا أقول عاوه فرحان وأقول قصد الناس سيدا كتب انت كدي تذكر فرقي فرق انت اختياري فرق مش لدي قام بيحايا تريد أن تذكروه دم بها هاتو way ka yaraayeen imika waa la batay dhinac walba waa la dhabatay waxaasoo waxa weeyaan taariikhda dee faraha badan ee la soo maray sidaa daraaddeed dadkii odayaasha hore ee dhanka midigta iga xiga jiib kastaba ha ahaadaane waxa weeyaan dadka aqoonta u kala leh oo dadka yaqaana kolkaa faalo kale ka bixin maayo arrintaa صلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لمان مدحنا حسبك أو هو عبد القادر سردي ما يرجع عاصمة الرئيس عبد الكريم أحمد موجة الليبان سليمان ظاهر طبق وصاحب هيئة يا معلم هيئة كبدة يوسف نوح يوسف تدسه يا ولبنا يا سلطان هو من وقامل يا مدرسة صلاة مدحنا قميرك هويك الرياضة لما أنتم وحنكون سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور كابن هذا كيف كابن أنو كل يوم أنت فرحة وين بيت هاي وحنكون سو كوري دونا صعب بنا هلا بعدين سنة حنوجه هاي صعافة دون يتجرينيس لكن وحنكون سو كوري دونا 6 دقائق يا كيان قدر تيجي كوبا ونقول هذا علم يا باشا بتسد وين الممكن إنسان كلا يسوبر برتاعتي حسب الوطني إسلامك عسينا أوشع عسي ما أنت اللي قيبتها هاي تاسي وحي واجبين إذا ساعدها إن تاجرنا هاي إن الحقيقة حقوق كل إنها حسب ولا حقيقة حقوق اللي يقول لي تاسي واحد اللي جربات إن نعد بينا كوكو ليسينو حلقة توصلنا إسلامك عسينا كل حساب تنو لبعض المشرح دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله يدفره هي مشرع حسبك حرص على حاجة حسن قلت طلبات كيف تشوف واحد درسين يعني المنطقة هذا اللي قبل هوي بلها تشوف روتي وحيلوقدوبوني على وش اللي بيلوقدوبوني روتي بلها يلوقدوني ولا لهم وتعلها وانظرنا وتتميا وحصلت تتميا بيلا كلو يجون أي ولا لقودنا هاي وبيلا كان حسس بينه ما أنت مقدموني بيلا كان حسس مثلا وحن ليه ورجع حسس سوق
maanta waan idiin godohownay waxaan ka soo baxnay calool qabow calooshiina aan soo gelaynaa yaanay nagu kululaanin oo haddii ay nagu kululaato kollay madaxdii way fadhiyaan caloosha qabow ka soo baxnay yaanay calooshiina nagu kululaanin mana rajaynayna insha allah biidnillaahi kariim runtii anigu waxaan iska ahay nin saxafiyaan ahaa iminku maa siyaasadda soo galay siyaasaddana kuwa rag waaweyn oo saaxiibanaay baa iga soo horreeya waxaanse leeyahay xafladani maanta waxa ay ka turjumaysaa oo ay tahay rag cadaalad waagay sida cawsha kalayaa xafladani waxa ay ka turjumaysaa ninku yidhi sinaantiinna ninku yidhi sinaantayna ninku yidhi sinaan mayno adadiisa reerkiisa taasi waxay macna ka tahay xisbiga wadani iyo dadka xaggaan wada degno cadaalad baan ka weyn waa ka soo cararnay sinaan baan ka weynay waa ka soo cararnay cabdiraxmaan baan ka helaynaa madaxda xisbigaan ka helaynaa maayarkaan ka helaynaa cabdiqaadir baan ka helaynaa welibana cabdiqaadir waa seedigayo war seedi waa beer cabdiqaadirow seedina waxaan keenayso insha allah biidnillaahi kariim dardaarankayga ugu dambeeya waxa uu yahay war waxaasoo farxadi jiri mayso haddaynaan maanta laba kala dooran waxaynu kala dooranaynaa waa nolol iyo geeri waxaynu kala dooranaynaa waa nolol iyo geeri war wadani waa nolol kulmiyana waa geeri waa noloshaa ma iska raacnaa noloshaa ma raacnaa sidaasay nolosha ku raacnay aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan taariikhda ku suntayaa oo markii ugu horeysay Somaliland ka qayb galo beel leh xisbi baan ku beeraynaa sharaftaas ay u leedihiin codsigiinu markii soo gaaray ama casuumadeeduna waan ka xishooday inaan idhaahdo ma tago beeluhu markay asxaabta ku beerayaan waayo qiimo badan baa ay u leedihiin aabbayaashii ama adeeradii madaxdiina dhaqanka ayaanu in badan soo wada noolayn inkastoo xagga da-da uu iga weynaa oo laakiin waxaanu soo wada marray waqti wanaagsan oo carruurnimo dad badan oo qiime ugu lanaa beesha bay ka soo jeedaan waxaa kaloo iyadana aanan uga maqnaan karayn xuquuqdiina raadsanaysaan Somaliland aynu doonaynaana waxa weeye Somaliland qof walba xuquuqdiisa uu helo inta ayaan Somaliland ka dhex muuqanna Somaliland ma qurux badna toddoba sannadood haddaa ka muuqan weydeen madaxda Somaliland ilaahay idinkii markaynu guulaysano marag waxaan ka ahaanaynaa codkiina waxaan marag ka ahaanaynaa taageeradiina waxaan dabagelaynaa wixii laydin ballan qaaday insha allahu tacaalana ilaahay idiinkiina waxaynu dhisan doonaa Somaliland aan wada leenahay oo aynaan kala lahayn oo qof waliba iyo beel waliba xuquuqdeeda ay ka hesho horumarsan nolol taallo qofka shaqaalaha mushaar ku filan uu qaato oo qof waliba raalligu ku yahay oo uu leeyahay Somalilandtii aan doonayn ku riyoonay waa ka weeye waxaa walaalayaal doonayaa inaan xasuusiyo halganku maaha habeen quraatay inta laysu yimaado in inta caalamka loo xal yiraahdo wadani baan soo galnay wuxuu u baahan yahay 20 cisho soo jeeda shaqa ah guushuna waxay ku xidhan tahay qof waliba inuu habeenkii markuu seexanayo yidhaahdo imisa qof baad qancisay inay xisbigan u codeeyaan mushaariiciisa u codeeyaan insha allahu tacaala taasaa guusha keenaysa taasaynu ku dabaaldegaynaa haddiise qof walba uu isdhigto oo yidhaahdo caawad xaflad ka qayb gashay waxaad sheegtay inaad wadani gashay khalaas way kaa dhan tahay taasi maanta guusha lagu gaarayo
waxaynu doonaynaa dadaal nafquris leh soo jeed leh annaga halkan markaan hadda aniga xildhibaan ka baxno waxaa laga yaabaa sidii xalay oo kale saacado badan inaanu soconayno annagoo isku dayna dad badan inaanu soo qancino qof waliba habeenkii waa inuu socdaa maalintii waa inuu socdaa ilaa uu hubiyo adigu qof baad oo cod baad leedahay maalinta codka la gelaya in soo qof baad hubisay ood waxa ka qaaday oo u codaynaya musharaxa xisbigan insha allahu tacaala haddii ilaha yidhaahdo haddii kale guushanaad xaqa ka doonaysee xaqaada ku siiso ee iska iman mayso guusha doon guryaha u garaac saaxiibadaa qanci marka intaa samayso innaguna waxaynu marakanay somalilan qurux badan oo aynu wada leenahay oo xaqiina ka heshaan oo xuquuqdiina ku heshaan inaan ilaahay idinkaaga dhisano oo idinkuna maraka ahaataan markaa codka bixiseen in musharaxiinuna wuxuu idin ballan qaaday iyo abaalkaa kula idin ba idin celiya haddii ilaahayna insha allahu tacaala waxaan kaga baxayaa ilaahay waxaan ka barayaa doorashada inay nabadgelyo inoogu dhacdo qofka hele ilaahay siiyana lagu taageero qofkaasina waynu somalilan horumaraya inagu musharaxeena waxaan damaanad qaadayna inuu barnaamijka ku qoran lagu gaahirgelinayo somalilaanta quruxda badan inaynu wada leenahay lagu walaalaahay dhisayo ayaynu damaanad qaadaynaa insha allah ilaahay jidka aynu heshiis ku nahay ee uu somalilaanta ku dhisaya hadduu ka baydhana miyaynu caabudaynaa oo aynu iskaga hadhaynaa waa u sheegaynaa jidkii ka baydhay waxaynu si rabnaa saynu ilmarka ammaanadeena ugu dhiibanayno codkeena ugu dhiibanayno inaynu ugu hadgelno inuu kursigaa fuulo dabeetana markuu fuulo ugu ducayno ku barbar istaagno xasuusino u ballan qaaday iyo wixii buuga ku qoraa haddii ilaha yidhaahdo guul baa walaalayaal idiin rajaynayaa somalilanna waxaa tii dad ku dhex sharaf leh haddaad xilkeeda ka maqan tahay sida kalaad uga muuqataa dad qiimo leh oo sharaf leh oo karaamo leh baa beesha ku soo jeeda somalilanimadaaduna mid la isweydiiye maaha somalilan waa adigaa iska leh dhiso oo hagaajiso haddaanan maanta hay beri baad qaynaysaa insha allahu tacaala haddii ilaha yidhaahdo waxaan uu ku khatimaya walaalayaal anigoo idin jecel dee howlo kalena waa lahaa kulamo kalena waa lahaa tegidaan idinka tegayna ha layga raalli ahaado waxaa inoo wacana waxaa inoo badan inaynu halgelno inaynu kursiga cabdiraxmaan saarno ilaahay idinkiina kula xuquudina markaa heshaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومهرين ودخل الأرض سياسيين بليانين الطمر بليانين وعيين وحدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما مهدد بهقوا لإلهي وسجناته إله سبحانه وتعالى وقت السلام عليكم أنت عاوة فرحة البيت هاي إن بيش يأتيشو كما سوف يقولون مناسبة اشتد الدور كأه عاوة أنظر الملاش شرفت لك العيسى إلى أن كما سوف يقولون أدروا فرح سنة كنتي سبحان حسنان beelaha isbeddeldoonka waa soo diraa bariya galbeedba oo yacnihii waxaan soo shaabadaan u soo dhiibaa oo waa ku soo duceeyaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin caawana isbeddeldoonkii waa duufaano maraya marka caawa waxaa laga soo qayb galay madashan ee caawa xilligaa sugnaan xasi soo bixisay beesha kishaa garanaya qiimaheed kartideed kartideed sharafkeed maadaama aan ka soo jeedo jedka jed 300 sano raaska inkastoo dowladu tahay bowarna miyaa la yidhahda iyo bowarna kiyo marka gaashaabuurtayda amba garbahayga akisho madigaan gurgulay yacnii shirka habaloola bartankiisa fadhiyaan
ويعني حتى وقت بس خير وقت بيا أيام ولا عاوة واحد يصير وتطبق وقول يصير ماشي أكشف بلويت أكشف شو ما لله واللوية كرتيدود يدل كود يقبل بدون يتوبينا واللوية أكشف الله قلبي يلا كتاب وقت الحكم عادي ولا شنو يتوبينا واللوية بالرياض شبابنا واللوية بالرياض شباب حسنت كيسة أكشف كتاب أكيشو iyo odayaasha dhaqanka markala soo dharaa orodka kusoo galooga ciyaar halka dadku inaan ciyaarayo u sameeyay moodiyay gacanta gaadha ciyaar oo kusoo galay akisha xafladeed أكيشو شركة من لماذا أكيشو دوان كان على هوتيل ماسون فقال لها القيسة القوة كنت بعدين صوت وقول يقف ضد هذا كاسوني البطل هو اللي يقول لكن أفضل توافر وإلى المري وحالات سياسية المري بركة وحاولي أكشف قوتي يمي لمدي آدي أدوم فرحصنا إلى البيضة هاتان فلغوه فيها كاكا بحضان إلى أيضا الفيسة بيش أكشف تاريخ وتاريخ مقوي وميساوي إن شاء الله بإذن الله كريمنا عاوة وحتى بسعود شرط يقول الواطن وكل العلم أكشف لأن العلم يقول الله صلى الله وواجه كانوا بكسر شرف علي طيب وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا اله الا هو. دمان اهلكي قوت الفردة رقي كومر لكن هي سياسيين هي ميدياها لما وحنيكم السلام يا سلام فإذا قالوا لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحفر بالله ورلا على هنتاي بانشري ميلا هاي حنتين اليوم بانية دورة عاوة وحميديها مرية صور فوتوشوبة وكا وقاسي وكلية يحس بكلام الرضي اللهم اجعل خير يا رب بين لدورو بيوي أنا 2017 إلا ما أنت ساعدت أي نتاجنا وعنها حسب الوطني ما هي تاجرا ما هي يتلياشان كميداي وحنر الله لما تصور كاسور لقي عند كفر عليه فرح بدن حمروا ميترنيك إنت ما بيكسر دبو وتطلع كله فلو تاكل ما يكبر بيصير بيجي نكام قوسا نيسا قوسا أنيكا إيجا قوسا كل يومه إن شاء الله نقدر نماري وحلا دوبي وحلا دوبي لو ترطاها وإنك عاو ترطادنا وبس
كلمة بولي هاي قول بولي هاي قرآن بولي هاي قرش بولي هاي كدع بولي هاي انتي بوان إسرائيلي ما نصوت أحدين كل مية وهدو ويحيى سواد وضحي ويحيى هول فربضان بوصوب قالي نكاسونا مقعا ولا قبل هو مقعا سوليه هو قرى وحن الله وقاسوحيتي وحيدي وان قفلي مفتاحين ودني ما نودي مفاتيح لا يقفلها ووضحها لغه هي نقا قفلي في هنا خسارني الباب ينظر نار ان شاء الله وانا يودكي ان باش شرف المغلطه هاي اول بيلاده هاي وين ارغنا وقدموت الفقوس على شيء نبوي iyo haday kurumayba waa laga soo baxay dibna loo noqon maayo madaxda xisbiga waddanina iyo murashaxana waxaan leeyahay ballan baa la qaadaa ballanku yurkii inaga noqon qoladii aynu garanaynay ee ku saaqiday 20 cisho u hadhay ballankaa qaadeen ka soo baxay dibna meesha u qaadeen وين ولا شقينا لواتك عشاء حقي لواتك عشاء كتير إن شاء الله بالله الكريم وحين يسكبي من دارتا مدحوينها إن شاء الله بالله الكريم عفوا ربنا من شعلائنا نقوس كوريو بما سؤالي ولدي واحد اللي باشا عرب ما محافظ ما مستوى معارض وحنقول باشا عرب وحو والله عضوك والنقطة وأي ميل مغضى مرتو مجورتك على وجه حساب تمام إن كان كل عيلين يا باش عرب ميل ورقوا يتاجن هاي يا الله لا يابين لا تروح وين النهر بهالكو يحيي وحسبا يمرشحا وأنا كنت قال قلينا وأنا كهو قلينا إن شاء الله نبض نوين قلينا مدحوينها أيها النوبل أنا دارتيسا إن شاء الله جلدنا وين كل مين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وين ياكل قدامك ورسالة برسالة لما بيش قضية ورسالة برسالة حزب الوطنية برسالة وغاسة برسالة شكامنا برسالة حزب الوطني إلى دورسنا هنا أكيد يمكن وجود تبعي بالوجه دي قبلي ما ترى يصعدوا وعلى رب العالمين شرعتي أكلها وأكل كبنا ولا يخلوه يشارع يقبل ما تتوقعي وكفدي لا صلاة ولا صلاة على لا صلاة حكومة ما تعرف أن المدير كامل أنا وأعطيك عسكري وعليها مع المولى كملا بدأوا يبحثوا كايا أيوة سكون نقول كمرتلا إيه كبيري أنا واحد ما كنت تشتغل بلاد إيه كبيري عندما أنا بلاد إيه كبيري أي شغل راكون من حوالي بس يسوون تقل كاب مقرن معاه قدر وصحة توارد الرئيسية واحد جواب فترة أيوة أقول لي أحمد سيدة يقول سيكيرة ومن دون سيرك مالكي هاي من دون سيرك سكرتيه حدنا كملا وهيك بلا عمي منع من وكل أعطي شايف ويجي حدنا وعمي شرع
naftiisa waxba noo oolin inaan waxaalaalo wax noo yaalaani jirin maanta ninka absee gacantiisa ku aasuraya weligii ma aasurayo inaad ina celina ku noolaani maanta waxaan leeyahay mid kalena waa idin sheegaya maanta waa maalintii la baari jiray maalin baa la baanaa maanta waxa ii farxada in madaxweynaha muddada ee reegaaday hadduu kii wadaagisa tigiina badan u ahaa kanna uu leeyaa tigay waxaa idin sheegaya in calool kumaa laydigelinayne maadaama aan abtiyaasha idinka aqaano xog badana idinka hayo intaa kusoo dhexda qaaday meel kale u kicin xaafadda imika aan ka hadlayna xaafaddan baa deganaa ee aan ku dhisay tahay inaydu si qabo balanta laydin qaaday inaydan ku qalayn inaan la mid ahayn kii horeyna qadyaadka taagayay waxaan leeyahay dhammaanteedu haddaanu nahay dacweyn taagisho meel kastoo joogtaan war waxaan nahay xisbiga waddani talabaad haduusa laba qolobay ku heshiisay labada qolobay ku heshiisay waxa weeyaan inaan kala soo qayb galo beelooyinteeda sharafta leh ee cududda ballaaran ku muujinaysa caawa taageeradeeda xisbiga iyo musharaxa xisbiga cabdiraxmaan cabdilaahi ciro dhalinyaro anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada waxaan caddaynayaa oo qof kastoo dhalinyaro beesha aakisho ka soo jeedana aan u sheegayaa xisbiga kulmiye 7 sano oo qoraxdii roobka kaga soo xeray maxaatibaad u tihi dhalinyartii jaamacadaha ka baxday ee wax baratay maayarmooda fadhiyey waxaan kuga codsanayaa dhalinyarta magaalada hargeysa joogta jaamacadaha ka baxday inay dowladda hoosena ku dulman yihiin tasarena ku dulman yihiin maayarka waxaan ka codsanayaa magaalada hargeysa inuu ka dhaqaalaysiiyo ama ka shaqaalaysiiyo dhalinyarada degan magaalada hargeysa wax baratay xisbiga kulmiyana waxaa leeyahay kulmiye waxba looma yaalaan 7 sano oo la xasuusan waayo waxay tusaale u tahay inaanu jiritaankeena raalli ka ahayn wixii loo yaala aanu jirin dhalinyarada weli ku baaqigaa ee abtinimo ugu hiilinaysa xisbiga kulmiye waxaan leeyahay reerama tartamaya xisbiyaa tartamaya innagu waxaynu ka soo dabaroganay xisbiga kulmiye waxaan u digaroganay xisbiga wadani sidaa laajigeed xujada ay xududeeda waxay ku muujinayno waxay xujo ku tahay codka laynaga rabo idanka ilaahay xisbiga kulmiyaha waxaan leenahay wadadhow ee caawa isugu timid halkan madaxda xusbiga culimaa diinka dhalinyarada iyo cuqaasha salaadiinta dhammaantiinba waxay ku salaamayaan hablaha haweenweynaha waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam caawa aniga farxad weyn bay ii tahay maadaama aan ka soo qayb galay beelweyntii akisho oo ku soo biirtay xusbiga waddani musharax cabdiraxmaan ciro inay isgarab taagaan oo siiyaan codkooda iyo cududooda waan idinku soo dhawaynayaa hambalyaan idin leeyahay midda kale anigu waxaan leeyahay beeshan akisho waa beel fac weyn oo isku joogta halka aynu joogno ilaa galbeed haddii ay halkaa u hagar baxaan inay meel walba buuxinayaan baan garanayaan xusbiga waan idinkaga soo horreynay maadaama idinka soo horreynay waan idinku soo dhawaynaynaa waxaan idin leenahay falyatafadal ku soo dhowaada xusbiga cadaaladda waxaad ka timaadeen xusbigii kulmiye waxaa la leeyahay la tuur koorkii kulmiye iyo kabii xarkiiba sidaasoo ma aha xusbigan isbedeldoonka ee waddani cabdiraxmaan ciro diyaar mawtihi inaad siisaan codkiisa wabilaahi tawfiiq waan idinku soo dhawaynayaa falyatafadal wassalaamu calaykum waraxmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلام يا بيرويتا كشو بيرويتا كشو آدي آدم سلام يا سلادين تيدا يوم قاشيدا هوينك يرتبوا سلامي وعن السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعم حسنك وغوري عبد الغاية الجلدي وكوهدو ودوريها كودوغا أولا حرياشا ينتبوا السلام يا ياشا وعن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن الملك لنا عايو haddii allaha waddan ogolaado waa khatarkii dadkii jamhuuriyadda somalilan ka koobnaa ee taageerayey amba u codeynayey musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee lixaad mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaah beelaha kasho waa khatarkii bay aad iyo aadna waan u salaamayaa ololihii uu ku maray gobollada dalka iyo degmooyinka madaxweynaha lixaad ee jamhuuriyadda somalilan khatarkeeduna waxay magaalada aalibada aad iyo aadna waan u salaamayaa waxaan leeyahay kii guulaysta ee dalkiisa iyo dadkiisa ku guulaystana waa kaa dhigo madaxweynaha lixaad ee jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi kii dalka waxaa sooranaya ilaahay kaa dhigaanu leenahay kii dalka iyo dadkaba u naxariistaan ilaahay ku weydiinaynaa kii aan dalka waxba ka dhigan ee taga ee umadkiisa iyo ummaddiisa iyo reer ku soo jeedaba taariikh ka taga allah kaa dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madasha waxaan u salaamayaa adeertay cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirbe iyo marwadiisa sabshar saalax wuxuu baan hadalkayga ku soo koobaya waan ku faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo in beesha akishe ama beelaha akishe ay ku soo biiraan xisbiga mucaaradka ay wadaan taariikh weyn oo ay beeshani ku leedahay somalilan ayaa jirtaa yaxya waxaan leeyahay waxaan kugu soo dhaweynayaa oo aan beelaha akishe ku soo dhaweynayaa xisbiga mucaaradka ah wadani oo ah xisbiga ay ugu awoodda badan tahay beelweynta arab oo ah xisbiga aanu ku leenahay labada guddoomiye ku-xigeen oo ah xisbiga aan ugu awoodda badan nahay oo miiska wax lagu kala jaro uu fadhiyo adeerkay cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirbe oo idinkana si gaara wax ku jiray waxaan idinku soo dhaweynayaa xisbi aada looga dhegaysto marwe samsam saalax oo runtii aan maanta leeyahay waxay idiin sii xaaday oo aad timaadeen xilliguu ugu habboonay xisbiga mucaaradka ay wadaan waxaan kala sheekayn doonaa taariikh aan reer sheekh ismaaciil aan isla soo maray anigu waxaan ku dhashay magaalada hargeysa reer sheekh ismaaciil hadday noqoto yaxye sheekh ismaaciil mustafa sheekh ismaaciil cabdicasiis reer sheekh ismaaciil lama tiri karo waxaan ahay dad isku soo afaray maalin maalmaha ka mida ayaa nin ciyaartooy baan ahaa mustafe iyo yaxiiwa iyaguna ciyaartooy bay ahaayeen isku reer axmed guro baan ahay aroosyadii xilligaa la qaban jiray ee looga jiray waxdadda ayaa aroos xaflad meelweyn lagu qabanayey ayaa su-aalada iska weydiinayay waxaa la yidhi yaa garanayaa asxaabigii ugu horreeyey ee kubadda ciyaara yaa garanaya baa lagu weydi anigaa farta taagay waa keebaa lagu widi waxaan ku widi sheekh ismaaciil buu ahaa asxaabigii ugu horreeyey sheekh ismaaciil buu ahaa waa qiimaha ay reer sheekh ismaaciil ay nagu lahaayeen waxaan leeyahay beelaha kishe taariikh weyn baad ku lahaydeen beelweynta arab
يا حافظ أحمد قري وأنا قلتين بلاها كسول بالي عربي قلتين راشا إسماعيل وقلتين إذا كرياتي نجمل جمهورية رجل من نجمل جمهورية سؤال غلط بالله يقصون غلط حافظ يا أحمد قري هذا كله كسور كبيرة وتقول الأودي حزب أيضا كبدين هذه هو مدحون المصدقي وحقي لوات جواي عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو حقي لو أركيا هذه وجلات جوايا عبد القادر حج إسماعيل تدار كلا وأنا هو المبتدئ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad uga xumahay qoon kana ligelinaya beesha hadalkii boqorku yimid ee wahaa yaxya u daraysanaya yaxya ma damaysanayo beeshuna ma danaysanayso waxa weeye beeshu badbaadada dalkan ay ceeb ka tahay oo ay u kacday ma danaysanayso dantu waxay bilaabaan hamada gudaha loo qolo ee dowladda laga shaqaysanayo laakiin markii halganka lagu jiro halgan baa lagu jiraa yaxyana waxa weeye waa algamaa weyn oo u kacay beeshan waa suxuf weyn oo anigu isagoo yar oo suxufiya baan helay oo magaranaysaa aan wada shaqaynay maantana siyaasi weyn oo siyaasiyiinta ka mida somalilan ayuu noqonaya beeshani somalilan oo keliya maaha somalilan waa halka ugu leeta siyaasad ahaan adduunyada kale ee soomaalida ku nooshahay beeshani iyagaa hogaamiye oo xukuma dhaqan iyo siyaasadba haddii muusabix iyo kurmiya ay yeeseen oo ay hoos u dhigeen beeshan iyadaa ismuujinaysa isa soo saaraysa waxaad xaq u leedihiin waxaad shaqaysateen buu noqonaya maa wax gacanta laydinku siinayo magacad laydinku fiirtaray maa wax laydku siin maayo idinkaa shaqaysanaya la soo baxaya oo cududiina iyo xooggiina midaynaya oo ku shaqaysanaya wax kula soo baxaya cidnaabaa lagu qabtaan ma jirto anigu beesha bishee waxa weeyaan ka mid baan walaaladii baa ka dhashay beesha bishee halkaasaan ka mid ahay waanu soo wada kornay bariiskoodaan cunay bariiskayga cuneen waanu wada nooleen guri baanu ku wada nooleen ilaa haddana dad walaal ah oo wada nool baan nahay oo reer jibuuti iyagu yihiin aniguna reer jibuuti berigoora ka soo bilownay marka aniga walaaladii baa beeshan ka mida markaa beesha ka mid baan ahay walaalayaal beeshan cidina u tilmaamayso dalkan iyo dalkan idinkaa dal kale idinkaa dalkan dhisanaya idinkaa dalkan u codaynaya idinka iyo beeshan ka dhashay iyo beelaha maanta ka madax banaan beelaha iyo meesha xukunka isku haya inagu u kala eexamayno weynu wada xigaan oo meel bayga wada jiraan waxaynu eeganaynaa keebaa maanta dalka badbaadin karaya keebaynaan farteena aynaan ku eegaynin oo fartii hore waynu wada eednay abti iyo ilmaabti iyo ende iyo wax walba wada isu yahay laakiin wax walba waxaa ka horeeya ka muhiimsan oo qabiilka ka horeeya abtinimada waxaa ka horeeya dalkan iyo dadkan in la dhiso oo la mideeyo oo walaaloodaan dadku waa wada walaalo waxbaa la isu yahay reer sheekh ismaaciil baa ugu soo horreeyey baan umalaya inta badan akishaha iyo magaalada hargeysa axmed dhagax ugu soo horreeyey annagu reer sheekh ismaaciil badankooda intaanay dhalinba sheekh ismaaciil laftigiisa ilaahay hau naxariistee wuxuu awta sheekh albeledku ahaa ونحن نقعد معنا وصوت معنا إيه في مساجد استجابة على أيوة وحوها شايف مكة عن عنصر عن بضمان أيوة مكة يعني راح مكة عن عنصر شيخ الكبير في قلت في الشريف هو إلى أين يقول وقت السوق عقمته ومن ربنا يعلم والله الله تبعي وانك أسلمها يا محشوة أيها شيخ إسماعيل ومين تشوف أمرك الله ما كنت تفوق ولا بيشو وبيل كتيروي يعني لا لا بيشو سومالي بقى لقى هذا أصل كسومالي هو أصل كسومالي تذكر لو هو رجلين سومالي أصل كده هو أكشاف من الشورى بعمله
meesha isxaaq iyo dadka kale la sheegaa dee meelo kale inay ka yimaadeen kulli lagu tilmaamo soomaalida asalkii waa inaga weeyey waxa weeyaan waqti badan baynu taaganahay waxa aan idinka rabaa inaad intiga u xidhataan 20 cisho aad soo jeedaan uga soo jeedaan aniguna waxaan ahay guddigii gudoomiyihii ololaha ee hogaaminayey ee guushaydu ku hogaaminayey ilaahay inuu guushayna siiyo oo aad ila shaqaysaan oo aad ila soo jeedaan oo asxaabtiina aad keentaan oo walaaladiina aad keentaan oo jaarkiina aad keentaan ayaan ilaahay idinkiisa ka baraya dhammaantiinba xalay gabiile baan joogay oo kula jiray ardaayadii gabiile deganaa dhammaantood waxay ii sheegeen sida la filayo xalay waxay marayeen 55 gabiile inay wadani tahay 55 kale ay u qaybsan yihiin sagaalka markaa gabiile way ka koobtay qabiilkii waxay u socotaa isbedel buu socotaa ilaahay isbedel khayr qaba inooga dhigo ilaahay isbedel khayr qaba inooga dhigo madaxweyne cadaalad iyo sinaanta ku shaqeeya ilaahay hayna siiyo inaguna aynu kula shaqeyno inaguna qalbigeena aynu sheegno inaynu dad wanaag iyo samaan iyo sinaan iyo cadaalad u socdo ilaahay weydiisanaya oon xumaan u socon ilaahay haynaga dhigo waxaan waqtiga soo gaabin doonaa aynu soo xidhan doonaa xafladda waxaan u yeerayaa odagaan abtigoo ahay ee intaan abtigoo waxayna dhabasantan saara daqiiqdeeda saara waxaan loonahay waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa beesha sharafta leh ee nagu marti qaatay kulankan xisbiga wadani iyo madax dhaqameedka iyo howlwaladada xisbigaba aad iyo aad baan ugu faraxsanay la marti qaataan oonu ka soo qayb galno waxa weeye beesha kishalay ku sheegi maayo waa dad ahlu sharafa waa dad ahlu diina waa dad geyiga soomaalida ku fadho caanka oo dhan wada yaqaano hadday tahay dowlad deegaanka soomaalida hadday tahay soomaalida kenya hadday tahay koonfurta waa beel weyn oo aad loo yaqaano oo ahlu sharafa oo ahlu diina ilaahay ha idin karaameeyo dhammaantiin baa waa garashada aad garateen waxa weeye dhammaantood wada heerbeelna saddex beelood oo waaweyn oo dee deegaanka soomaalida ku waaweyn ayaa gobolka degan weliba gebile gobolka gebile waa kishe waa gurgure waa badigaan haddaad xuduudka ka dallowdo waa beelaha ugu waaweyn dowlad deegaanka soomaalida Somaliland waxay u baahan tahay iyo saaxiib ay dowladda saaxiibto ilaahay intii waxaa noqon doontaa biiska isku xidha dowladda Somaliland dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda Itoobiya idinka marin iyo biis loo noqon doona ilaahay awood weyn uu ku siiyey dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda Itoobiya madax baa ka tihiin waa ka muuqataa hanti baa ku leedihiin dad la yaqaano la xiseeyaa tihiin taageeradiinaan u baahannahay isgarabtaagiinaan u baahannahay ilaahayna siitaasina waxay noo noqon doontaa idinkaa garwadeen noo noqon doona oo nahagi doona oo dowladda Itoobiya dowlad deegaankana marmar baa dowlad deegaanka iyo dowladda Somaliland waxoogaa xasal kala gala idinkaa safiir noo maqlaya safiirada idinka ayay noqonaysaa sababtoo ah halkana deegaan baynu wadaagnaa iyo dad halkana deegaan iyo dad baynu wadaagnaa weliba absasiima inoo dheer inoo gaara ayaa inoo dheer marka waanu iska ballan qaadaynaa waxa weeye berigii 91kii la soo galay isaaqu waxay ku kooban geeyin waaweynaa hadday isaaq tahay iyo hadday tahay iyo hadday ciisyo garfuusi tahay beertaa la qasan waa ku dagaalada sofiilinka في 93 بايين لما حصل شركة 97 هي ورقاتنا ستبعها وين تذكي ذلك إلى نلها وين أنت سبها وأبقى حرام فوضى هاي بيرها برجولة أكيشة مديان سبراهيل أبريوريس بيرها كفوضى هاي waxaan u xirnaa ka qoornay dadka dadku inay leeyihiin halka intaaba naga haysataa waa dadka aan dafacay xuquuqdooda
بيجي أنا نبي قرصنا سمي شيخ إبراهيم سلطان عبد الورابي سلطان محمد سلطان فارحي رجع سيها ما تركي دالة مكة وين رجع مني ديني باكيا سومالي لأن حقوق الأدوم ككل هاي كه الميسو أنت كلها كل بيت الهاي مكة كوينية مركز أدوم بدها كل بيت ميت ماريا وكاحوي والعفريدة يقول هذا مصري مركب وحوي يقول نود عيسى بيجي أقول له كفنين كابا عليه يمكن نود عيسى يقول لا أنا أقول ما أعرف وحوي الوضيعنا وحنا ينسينا يوم ووحنا الوضيعنا إنه هو حقيقي عندك قبل ميسان وحق لا هي تنسيه كل كمان أي ما توقفني جب كيريا وجين كيريا والله أنا ما أقول هذا عبد الرحمن ما يقول رئيس أو قال يجلس في القطو يقول له رئيس ما بطل إذا كان ولا إذا يا مريكان يصدق البيرة لو يقول رئيا يقال يجلس في القطو أنا بطل وأي واحد يجرب بالبلد يا بتشوفه حق الله هي حق بني آدم كلها ما كيدي كلا جوليو هي حق اللي قال يوايو سرور ما يوايو إسحاق ما يجوليه وش كسو تيسريه ويسيه كده كسوالة جوليه هرتوالة جوليه جولو كسبتها يقوم يلا أدوك كلها كده ولا لا خلاص بركة إلهي جولنا هنا قبل كذي دولة جول بباهي دولة محمد زياد دولة جول بباهي واحد كلا بري حول كذا مريض تبكي الجنين ظلم يوبا إلى هاي وقابون ذي تذكر يودي اللي تبكي ليه ما أنت أنا حوالي سأل ظلم قالوا بس بعده والله ما هنقول هذا من حد ما يشاء والله ما هنقول هذا يشوف ناس يأكل يتسمع وسام ولا شقية وانصح يا وفي سوى أفتكر ما إذا درسنا سومالا بوم درسنا ومالا هناك إلى كتيرة دي وحلوية لوهذا بحق الله بابا حق وضع العسل وننقى مصر وكلت شوقة وولاية الله أموري وصدال كلت كل شيء وكل مدى مركز هو وضع شيئته إلى كل شيء قامته إلهي كبير ديما مركز وقور دبير أولئك أضرب البطل هل سؤال بابلي فإذا سحبنا الدربان بالنوتو ما يقول مش حاليا هذه أقل لكم عمرين الله يبارك